waxaan soo galay makhaayad Ethiopian oo Ingiriis ku taal wallahi marka af Ethiopian igula hadleen waxay iimayleen Ethiopian ma ihaan lahay yaa wadanka u dhalatay dheen Suudaan ma tahay ma yaan lahay Soomaaliya ah muxuu igu jawaabay markaan Soomaaliya ah markaan dhahay Sakafa champion Soomaaliyana waxaan u sheegayaa qof walba oo shaqo loo idmado sida Nuur Amiin shaqada uga soo baxo run ahaantii ninkan taale in loo dhiso mudan yahay xaqiiqada sababtoo ah taariikhdu sameeyay cid samaysay malaha farxad weyn ay tahay maanta inaan ka soo qayb galo akademiyada loogu magac daray walaalkay Nuur Maxamed Amiin aniga wuxuu ii yahay waa nin igu qaali ah runtii mar waa macallinkay mar waa walaalkay marna waa saaxiibkay sababtoo ah ninkan anoo yaraan daawan jiray asoo xulka qaranka Soomaaliya u ciyaarayo asoo kooxda madbacadda u ciyaarayo aan bilyeeti inaan isku soo kabo aan darbiga ka soo boodi jiraan fiirsan jiray ilaahay wuxuu qadaray anigii saas ahaa inaan garoon ugu tago asoo dheelaayo marka nasiib aan u yeeshay ninkan run ahaantii ninkan taale in loo dhiso mudan yahay xaqiiqada sababtoo ah taariikhdu sameeyay cid samaysay malaha wax walba Soomaaliyana waxaan u sheegayaa qof walba oo shaqo loo idmado sida Nuur Amiin shaqada uga soo baxo runtii akademiyadan wax walba oo wixii fikir ah wixii aqoon ah wixii tabar ah wax walba diyaar ah ulana hadii Ilaahay yiraahdo mar walbana waa naga go'an tahay haddaan nahay macallimiinta Soomaaliyeed inaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan gelino juhdigeena iyo waqtigeena saa ogtiin sidoo macallinka daa idin sheegay dadkii youth soo bilaabanahay saddexdeenaba 2018kii under 17kii finaalkii imaaday boqolkiiba 80 dadkii soo diyaariyanahay ma alfanin maantana waa kaas ilaahay wuxuu qadaray Nuur iyo Maxamed Bashiir inay nasiib u helaan aniga wadanka waa ka tagay waxaan idin sheegaa hadda markii Ingiriiska anoo joogo laba bilood ka soo wareegtay markay koob qaadeen waxaan soo galay makhaayad Ethiopian oo Ingiriis ku taal wallahi marka af Ethiopian igula hadleen waxay iimayleen Ethiopian ma ihaan lahay yaa wadanka u dhalatay dheen Suudaan ma tahay ma yaan lahay Soomaaliya ah muxuu igu jawaabay markaan Soomaaliya ah markaan dhahay Sakafa champion magacaas yaa isii magacaas yaa ii keenay aniga waa ka mid ahaa macallimiinta youthka laakiin jaanis uma helin oo wadanka waa ka tagay haddana qalbigayga mar walba la joogay 24 hours waxa waaye waa dad wada xiriira ahayn oo wax walba meesha marayaan la socdo marka aadan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo Nuur Maxamed Amiin akademiyada loogu magac daray